بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلان وحفلين كان أنقبل لو ضماء هاني وقرشة سو سعودو صدق سنة تقريبا شنتي سنة وقدم بيسي إنديا وحي كجرتها للدقالن كتاريخ ذي إسلامي هاي هندية سو حكومي أما سو حكومتي مدة فك كي أبني طبعا أكشي كمار وحو كخيب قاتي أرين سعودي أيو فيديو كان وحو أها أسغى عنده كرا تقريبا يعني سيدا advertisement أما حيسين أيوها وحنا دبس عدا فيديو جهران أدوبي وأن كجهلاي فيلنكي طبعا وجلي أكشي كمار أو طبعا وكو قصاري إلا يهدر تان النخذي فيديو جي أما فيلنكي عفوا وخسارها بدنا أنت بوليوود كوجري سيدا إيشيغان طبعا إلا يهدر تان وحال إسكودا إن لا كفر جرايو أو مركا la qarqariyo iska dhasi hadii loo dhigo laakiin arinta waxay ka muuqataa is-eedeentooda iyo markaasi isku turtuuridooda iyo far isku taagtaagooda ka muuqataa videogan marka waxaan kugu wadaagayaa arin halis ah oo socotay filimkan intoona soo bixin ka horba taqriiban waxaan ku iri ama qoraalka hadaan dabcan aan ku fasiro intaan ka akhrinayaa ama halkan sidoo kale aan ku soo saaray ilmaha marka primary-ga كبحايان أما دوكسيغو هوسه markay ka baxayaan sanadka ugu dambeeyay doogsiga hoose ayaa lagu bilaabaa in marka forger ama si fake ama si khalad ah loogu sheego arintan waxa sahlay 2020kii koronihii dhacay waxa India dabcan badankeeda la geliyay ama sida markaasi qoran weeyaan qoraalkan ku qoran virtual learning waxaan ay dhahaan ama fogaan araga wax lagu baranayo taasoo marka meesha ka saartay ilaan waxbarashadii hore ama manhajkii degsana wuxuu ahaa mid aad u adag tahayna sidaas oo kale in qofkoonan u jeedin oo barto marka waxay sameeyeen waa maxay fursad cajiib ah meesha ka arkeen taariikhdii India ee muslimiinta soo xukumay ka warama marka hadaba meeshan kaga faa'iideysano manhaj cusub fududo kaali arag ah oo aan dadkaas ku durayno hadaan soo saarno meeshay ahayd marka fursadii ugu fiican ay heleen ayagoo horay soo waday yani magac xumaan kaliya kadib arinta marka ay suura gashay ayaa secondary-ga waxa lagu sameeyay in lagu baahiyay dugsiga sare galaaskiisa koowaad labaad saddexaad yani waxa laga dhigay taariikhdii islaamka ee India soo xukuntay intaasoo qarniga 16aad 17aad 18aad 19aad xukumaysay ay waxa laga dhigay waa maxay kuwa India ku ahaa macnaha cadow ku soo duulay banaanka aga yimid dhibaatooyin ku sameeyay kada yani ilaa iyo laga dhigay ماشي وقدرنا لجارسي عداوة يعني إلا أن أجو يرانتا قفك مركل لو برباري وحي وآمنة سيدا الصومالي بدن لو برباري وحي على بدن أنا نجرين حقيقة كفك بدن أنا لو وصل برباري يوم رئيسه تصارات دام كسين طبعا يعني وشيكوينكا مد بتكارك إيو عنصرين ماذا الصومالي لو بيري يرانتو هذا إلا إمانتان إسكا أمينسين خرافاتك لو شيء يوحي لميتك سيدا سوكا شيكوينكا عبسيدا له qori ismaris iyo juudaan iyo wixii la midka ah marka kana sidaas oo kale ayaa la doonaya marka in brainwash ama maskax dhaqid lagu sameeyo almuhim say u soo socotay haddaan halkan kaaga bilaabo marka filimkii Akshay Kumar fikrad ahaan koodii waxa dabcan keenay rag kamid ah hinduuga xaq jirka ah kana mid ah sidoo kale xisbigan xukuma ama BJP Bharatiya Janata Party waa xisbiga xukuma wadanka India rag kamid ah ayaa u soo dhiibay sidaas oo kale raggaas waxa ku jira xataa waa maxay rag agtara ah marka almuhim taariikhdii iyo oo fake dabcan oo la qoray ayaa ninkan waxa looga dhigay atooro marka inuu dabcan matalo ninka suldaanka ah islaamka ahaa ee India xukumay cadaalad iyo wanaag iyo sharafna ku xukumay in magaciisa oo wareejiyo oo qaldo dadka oo ka gado yani si xayeysiin ahaan ilaan ogow waxaan hore kugu soo sheegay iskuulada laga soo bilaabay horay arin u soo socotay ahayd in taariikhda islaamka la bedelo si hinduuska loogu beero nacayb yani yaraantoodaba min albidaaya si loogu beero filimkii waa la habeeyay in taasoo malyan oo qarash ah lagu bixiyay si dabcan arintan ay u suura gasho ilaan ogow caalamka Soomaali hadana in badan aan ka dambeynaayo waxaa jira qofka wax lagu fahansiyo basiid ah juhdiga uu qaadanayo waa hal mar oo kaliya waa video ayaad sameynaysaa ama film ayaad dhigaysaa wabillahi tawfiiq waad seexanaysaa
filimkaasi laba arrin uu markaasi ku sameynaya mid wax weeyaan lacag socota ayuu ku soo xareynaya kow mid labaad waxay tahay hadafkii aad ka lahayd uu suuragalaya caalamka maraykanka waxyaalaha ku qabsaday waxa ugu weyn waxa ka mid ah maxay filimaanta propagandada wax walba dhaca dhash film caadi ah laga soo sameynaya taariikh walba dhacda cajiib waxa ah taariikhda dhacday ay filimka ka soo jiraan waa mid ayaga markaasi ay sameysteen tusaalaha haddaan ku siiyo Black Hawk Down helicopter-tii dabcan la dhahayay ee markaasi oo lagu soo riday Black Hawk xamar lagu soo riday Mareykanka filimkii Mareykanka ay ka jileen ka waran say u wariyeen Soomaali siday u aaminsaneyd ama waxay aaminsan tahay ilaa ay hadeertan adiga ahaan maxay kula tahay maxaad aaminsaneyd dagaalkaas u dhacay Mareykanka sidee dabcan maxaan ku dhahay lagu sameeyay iyo wixii la midka ah filimkaasina sidee loo jilay maxaa laga hadlay waxa laga hadlay Soomaalidii Mooriyaanto ahaayo rafaadka sanay argagixisada ah ee balaayada aha oo hadda boqol loo dilay hal nin askari ah ayaa boqol dilay hadan intuu ka baxay boqol kale dilay hadan halkaas ka baxay boqol kale dilay ajiib ma dhacday boqolaal kumanaan in sida loo laayay macna ma dhacday markaas askarta waxay arkayaan lugulaha oo 3 ayagoo ah yani ilmo badan iyo dumar badan markaasay dhabarka gashanaan waliba Afrikaan ayaa lagu metelay Afrikaanta yani waliba adiga Afrikaanta kale khaasatan waxaan u maleynayaa haday Black American inay yihiin u badinaa sidoo kale ayaa Soomaalida lagu metelay markaas hadallo waxa lagu daray la ilaaha illa allah iyo maxaan ku raay aadaan iyo yani waxyaalo noocaas oo kale ay muusiga Soomaaliya oo kale lagu daray lagu lifaaqay taariikhda marka sida loo warinayo filimka marka la jilaa waa maxay narrative-ka qoladan ujeedada ay ka leedahay ayay u warinaysaa waa sida marka cid walbo filimaanjisha fikrada ay xambaarsan yihiin ma aragtay filimaanta Turkida ee hadda ay ku taxan yihiin Soomaali badan oo Soomaaliyeed maxay xambaarsan yihiin maxay ka hadlaan maxaa markaasi filimaanta lagu sheegaa dad ma aragtay filimaanta jilitaankooda siday u jilaayeen oo Soomaaliyeed yani rag iyo dumarba inay macnaha jacayl feeg ah iyo waxyaalo qaarkiisa inta laga dhaadhiciyay sida hindida oo kale yani inay qaarkooda isu saraan ama meel isaga tuuraan ama sun u cabaan yani wax bay xambaarsan yihiin carruurta guriga ku fadhiisa tusaale ahaan kaartunada fiirsata caadi macallina u jooga weeyaan kaartunka waa macallin oo kale marka haddaan ku soo koobo filimkan marka wuxuu ahaa waa maxay taariikhdii iskuulada lagu dhigayay ee la bedelay dabcan ee feega ahayd yani afwan feega ahayd ayaa waxa la sameeyay waa maxay ayadoo filim marka Akshay Kumar uu ka yahay atoore Akshay Kumar dabcan Soomaalida u taqaano Master Bond ay u taqaano oo atoore ka yahay waxa ku jira sidaas oo kale actor-ka magaciisa asagana Nuun Soomaalida u taqaano oo maxaan ku raay magaciisa iyo kale asagana wuxuu ahaa waa Sanidol magaciisa nacam Sanidol Nuunna Soomaalida u taqaana san filaayo marka Sanidolkaasi wuxuu ka mid ahaa qoraayaashii ama directorada filimka sida ku qoran warqadaha ama warbixinta dabcan marka haddaan ku soo koobo filimkaasi ujeedadiisa oo lahaa ama laga lahaa maxaa fashiliyay qasaarahan weyn maxaa geliyay waxa geliyay dad badan oo damiir leh ayaa ummad walba ku dhex jira diidaya mar walba hor istaagaya xumaan walba la isku dayo wax walba dabcan la isku day in la khaldo arintii buugaagtii la bedelay curriculumkii ama manhajkii ayaaba soo ifbaxay filimkan kadib u fiirso filimkana wuxuu ka shifayaa dabcan ma aanan daawan laakiin waxaan akhriyaan ka hadlayaa oo iyo newsyada ka hadlay dabcan aan ka hadlaya aniga marka taqriiban filimkaasi wuxuu fashilay waa maxay arintii weyneed qarsaneed hoosta loo waday ilaa iyo journaladaas aad arkaysaan sida loogu soo qoray cajiib sama halkan marka baaq waxaan ka jeedinayaa oo aan rabaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dabcan ila ogaadaan aana ku dhiirageliyo hal arin aad u weyn waxay tahay war waxaad lacagta ku bixinaysaan iska fiiriya waxaad jilaysaan ee ciddaad jilaysaan iska fiiriya dadkan hindida turjumaya Soomaaliyeed ee af Soomaaliya ku turjumaya dadka fiirsanaya ma aqaan hadda kulli xiliyadan sanadahan ma sidii hore ay ku yihiin Soomaalida hindida ma sidaas u fiirsadaan inkastoo had social media oo soo baxayo TikTok iyo Facebook iyo YouTube iyo yani waxyaalo badan oo kale lagu mashquulay laakiin waxaan filayaa wali in la fiirsado ma hubo laakiin sidaas aan filayaa hadday marka taa tahay ay arinta ay jirto waxaan leeyahay in badan lacagtaada meeshaad gelinaysa hubi oo fiiri
أول بوحن أيغو أي حاران أهايين إن حمانتا نوعا لعكو بيحسو هادنا واحد دين تادا يعني واحد فنقرينيسا معناها واحد دين تادا لوغا سو horjeedo diintaada ilaan bollywoodka marka filimkiisa aad fiirsato lacag ku bixiso ama soo download garaysato lacag ku bixiso ogow lacagtaasi mar walba waxaad ogaanaysaa bollywoodka hadduusan dhammaan wada lahayn qayb uu leeyahay sida ogow caalamka ma jiro wax la dhaho free ma jiro cid free wax ku bixisa ma laha network aad ku fiirsanayso xataa soo lacag ma siisid xataa hadduu wifi soo lacag ma siisid sidaasay la mid tahay inta daawasho waxa cajiib ah inta daawasho ee daawatay wadanka laga daawaday ama loogu badnaa yani waxay siinaysaa daawashada kaligeeda waxay siinaysaa views ay u korinaysaa marka adiga oo kooga ama halka qof ah hal qofaad laakiin waxa laga yaabaa inaad ku noqoto kii tobnaad ama 10ka ka dhigay ama 100ka ka dhigay ama 500 ka dhigay ama 1000ka ka dhigay qofka kale Soomaaliyeedna sidaas oo ku noqonaya kii ka dhigay 5 milyan inay daawatay ama 6 milyan ay daawatay sidaas oo kale marka 100 qof ama 200 qof ama 500 ama 2000 ama 10000 oo Soomaali oo daawata fiidiyoyada noocaas oo kala Bollywoodka ay sameeyaan noocaas oo maahan fiidiyodooda waxaad qarash gareynaysaa ogow diintaada oo la bedelayo taariikhdii muslimiinta oo la bedelayo muslimiin la magac xumeynaayo ayaad fangareynaysaa nacam horaan u soo fangareynay haddaan xaqiiqda ka hadalno horaan u soo fangareynay India wuxuu noqday waxa number 1 ka ahaa Soomaaliya oo Soomaalida oo dhan meel ay joogaan dibad iyo dalba waxa kaliya ay fiirsadaan ilaa iyo dabcan raggeeni iyo dumarkeena ay iska dhigeen ay u arkeen inay yihiin hindi oo kale dhaqankii hindi amal yani waligeed qof aanan hindi tagin oo af hindi ku hadlaysa ma aragtay ama fahmaysa xaaladaasan gaarnay meeshaasan gaarnay sidaasay noo saameynaan u dhaxgaleen marka nacam waxa la joogaa pointigii meeshii lagu joojin lahaa ama lagaga fiirsan lahaa in aan fangarayno inaan lacag ku bixino filmaantooda iyo wixii la midka ah nacam ayadoo ay dheer tahay muslimiinta Hindiya ku nool sida dhibaatada ay ugu hayaan rasuulullah alayhi salaam waatay galeen darad oo aad lagu kacay iyo wixii la midka ah laakiin ogow aktaradii aad jecleedna way ku darsameen nacam qof yahow Soomaaliyeed aktaradii aad jecleed way ku darsameen Akshay Kumar kamid ah wada filimkaas sida jiraaya dabcan Sunny Deol kan sidaas aan sheegay sidaas uu kale kamid yahay waxa kale oo ku jira oo aad xisbigaasna kamid ah naceebkana ku faafiya oo mar walba fiidiyadiisa ay kamid yihiin dadka kiciya dadka kale muslimiinta ku dira ninka Soomaaliya u taqaan balwaan magaciisa caadigan oo yahay Sunil Shetty ama aan iska fiiriyo kaadi Sunil Shetty magaciisa caadigan oo yahay nacam marka kaana waa maxay waa kuwa ugu adag marka la fiiriyo naceebka islaamka faafiya maxaan ku raacay naceebka islaamka ku baaqa ayagoo dabcan fiidiyo ah jira cid YouTube ka gasha way arkaysaa marka dadkii aad jecleed ama aktaradii aad jecleed sidii ma ahan waxa jirta sidaas oo kale gabar aktarad ah Hindi ayadana sidaas oo kale Priyanka ayaa la dhahaa Priyanka UNK dabcan hadda kamid tahay laakiin ayadoo kamid ah waa tii ku baaqday Pakistan in nuclear ugu dhufto waa sida dago macnaha halkaasay maraysaa Pakistan yani maadaama muslimiin ay yihiin India ay Kashmir isku hayaan marka Kashmir tan iyo waxaan basheekada hadda maatee war Pakistan marna dhaafiya sidaas marka ogow aktaradii aad jecleed ma ahan kuwii awalba inaad jeclaato ma aysan ahayn awalba waad khaldanayd laakiin haddana khaladkii hasii badin oo ha ku taageerin in aad diintaada iyo dadkaada oo la dhaleecaynayo taariikhdii la bedelayo qayb ka noqoto sameyn insha Allah ta'ala video markuu wuxuu daba socdaa kii hore aan ku faahfaahiyay arintan cidaan hore u soo daawan ka bal soo daawo soo arag laakiin haddaan ku soo koobo inta weeyaan nuxurka filimaanta ay jiraan taariikhda islaamka la bedelayo suldaanadii Hindiya soo xukumay oo laga dhigayo dad cadow ah dabcanna illa ay xad politicianadooda ama siyaasiyiintooda way u suura gashay inay ku shabadayaan islaamkii soo xukumay Hindiya inta soo qarni inta soo boqol sano inay ku shabadayaan dad invaders ah dad cadow ku soo duulay wadanka sababtaasaana keentay Hindida la dilay maanta ama la garaacayo in la dhaho Hindi ma batihiinba waxaad tihiin ilmihii cadowgii nagu soo duulay weligiina Hindi ma aadan noqon weligiina meel aad naga soo gashaan malahan isku dhiig manihin isku dadna manihin waa sida hadda ogow waxa loo dilaayo waad arkaysaa ayadoo marka la garaacayo oo kale hadalaas lagu dhawaaqayo ka bax
go back to Pakistan, go back to Bangladesh ayagoo dhahay subxaanallah. marka naceebka ay faafinayaan adigana qaybaad ka noqonaysaa haddaa filmaanta noocaas oo kala daawato ama lacag ku bixiso iyo wixii la midka ah. aan isjirna marka Allah idin barakeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر